هذا أخلاقياتك هي الرقم هي كبعنت النفط وحيوبا هين استمرارية هي ممارسة وحلينا وحيوبا هين شوكتين ما أنت مركز لو وعدية وتسعنا أنا نصح عاو مركز تقول جيت تكتو حد لا ذي واحد أبا هنتهاي إن أدنفتن جيت كحلو إلهي كبقتي أرورت سوى قد بمركو بريو وحيبا مدبك ما حسوسك مركز واجد دم بريو ولذلك والصومالة وحيد هذا وعدي ويد بهبين بالغوس إحدى بين هذين يجوا وجهنا هو مركز هراء الغوش يجيوني واحد ضمبه كسي ضمبيا مشيران ما حي نفتو باهنتي مركز وحيو باهنتي إنه جانك الله يو لكبعيه وحيو باهنتي إن لبرباريه وحيو باهنتي إن لإلاليه واللغو إلاليه دقق في عن واللغو إلاليه أخلاق دوركسن واللغو إلاليه التوحيد waxay u baahan tahay naftu la daahir yeelo laga daahir yeelo amraad alqulub wa nufus xanuunada ku dhaca nafta in nafta laga ilaaliyo dhulumaadkeeda iyo madmadowyadeeda in nafta laga ilaaliyo waxyaabaha tanjiisiye nijaaseeya in nafta laga ilaaliyo shahwaadka kuwa xisiga iyo kuwa macnawigaaba waxay u baahan tahay naftu in laga daahiro markaas gaalnimo shirki riyaa nifaaq waxay u baahan tahay in laga daahir yeelo naftu مقعدون يا ماموستون نفتو حب البروز إن موقته بني آدم كويس كتشعلي ولو وعدنا كم موقوه إن وهب الهبل الغويرة هذا صوب حظه نفتو ويسكتش عشان لكن صوب بحسته خير ماله وحا خير لقفه إنه متواضع هيا إلهي كحرية بخير له إذا نفت بني آدم كاهي الشيطان كهدو كاعلين كرواية خير وحس كده يا خير كينو كدر درسيات خير كي سميني هذا خير بالعشرة إنه كانوا adigoo camalkiiba samaynaya inuu camalkaaga ka dhiga mid ikhlaas beelay ama mid magac iyo maamuus aad ku raadinaysay oo aan ilaahay agtiisa waxba aanad kaga helin bay nabigu salawaatullaahi wasalaamu calayh aakhiro kuwa naarta loogu horshido maxaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa buu nabigu yidhi ku wax bixin badnaa waxaa ka mid ahaa buu nabigu yidhi ku quraan akhris badnaa waxaa ka mid ah buu nabigu yidhi maxay ku jihaad dagaal badnaayo geesi ahayo jihaad ku dhintay saddexdaba naartaa lagu shidaa buu nabigu yidhi sababta markii nabiga la weydiiyeyna wuxuu tilmaamayay ka koowaad ilaahay baa wuxuu yidhaahdaa qur-aankii aan ku baray maxaad ku samaysay ilaa habeen iyo maalinba waa anigii akhrinayay buu yidhaahdaa waxa alla uu ku yidhaahdaa waxaad salahayd alla yidhahda hebel waa nin qur-aan akhris badan deyntiina waa tii dadka ku yidhaahdeen magac cumaad ku doonaysa iyo maamuus iyo hebel nin ka tajwiid fiican ama ka qur-aan fiican ama heblaayo say qur-aanka u qaybsan tahay jaayisad kasta iyadaa qaadata intaa umaad ka rabtay deyntiina lagu yidhi buu ayuu alla ku yidhahda subxaana wa tacaala aniga agtayda waxba kuma yaalin kii adduunka badnaa baa la yidhahdaa maxaa waxa uu yidhaahdaa ilaah waa anigii bixiyey wixii aad nimcay siisay waxaa lagu yidhahdaa waxaad u bixinaysay waxay ahayduun in la yidhahdo ninkaa hebel waa deeqsi hebel gacantiisu waa nin faxala oo gacantiisu kala baxsan tahay deyntiina lagu yidhi baa la yidhahda ilaah agtiisa waxba kuma lihid kii kale jihaadka ku dhintay waxaa la yidhahdaa waxaad u diriraysay uun in la yidhahdo ninkaa hebel waa geesi xaggu kaa xiga lagaaga soo dhici maayo deyntiina lagu yidhi baa la yidhahdaa idan xataa shaytaan hadduu kaa waayo inuu cibaadada kaa joojiyo wuxuu isku dayayaa markaad samayseen inuu ku derdersiiyo idan xataa shaytaan hadduu kaa waayo inuu cibaadada kaa joojiyo wuxuu isku dayayaa markaad samayseen inuu ku derdersiiyo ku dhinac marsiiyo oo wixii ammaanta ahaa ee ilaahay agtiisa wax lagaga helaya waxaan ahayn inuu waxaagii ka dhigo idan waxaynu u baahanay nafta inaynu ilaalino inaad naftu way sankay taagaysaa iyo madaxaad hoos u celiso ilaahay mutawaadic ilaahay aad u dhul dhigto walaalada aanay ka san taagin aad hoos u celiso magac iyo maamuustoona aanay doonin aad u diiddo naftu xuduudi nafs alanaaniya anaadu way tiro badan tahaye inaad anaa oo dhan ka joojiso wax allaale iyo waxa ay naftu rabto ee ay kugu qasbayso o dhan inaad u diidid idan naftu waxa ay doonaysaa way tiro badantahy meesha ay ku socotaana waa mahlaka waa dhul khatara waxaa loo baahan yahay naftan hoggaanka loo xejiyo inaad xaasidnimada ka ilaaliso oo bakhaylnimada ka ilaalisid oo isla weynida ka ilaalisid oo inay naftaadu ku cajab geliso aad ka ilaalisid oo adduun jacaylka aad ka dhowrtid oo hawo jacaylka aad ka dhowrtid ilaahay wuxuu tilmaamayay qoladii jannada gelaysay maxaa la yidhi faama man khaafa maqaama rabbi wanaha annafsa can ilhawa maxaa ilaahay tilmaamay faina aljannata hiya alma'wa janna haddaad doonayso waxay ku xidhan tahay wanaha nafsa can ilhawa waxay doontaba inaad diiddo albusari gabaygiisii muxuu ku sheegayay
wakhaalif الnafsa wالshayطaana wacsihima war naf iyo shayطaan weligaa caasi buu lahaa oo hadday isku kaadayaan buu yidhi wain humaa maxadaaka nusxa fatahimi xataa hadday shayطaan iyo naf isku kaadayaan inay kuu naseexeeyaan naseexadooda xataa ka shaki buu yidhi waxaa ku sugan meel khatarun bay kuu wadaane idan waxaa habboon in nafta aad ka xakamayso waxay doonto oo dhan waxay doonto o dhan inaanay kaa helin waxay doonto o dhan hadday kaa hesho jabtay nafta waxay u baahantahay in la rabeeyo lagu rabeeyo tawxiidka ilaahay iyo ilaahay subxaana wa tacaala asmaa illaahi alxusnaa inaad dhadhansato tawxiidka ku rubayntiisa maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah inaad rumaysato ilaahay inuu keliyahay waxaa ka mid ah inaad rumaysato ilaahay gacantiisa inay wax waliba ku jiraan haddaad rumaysato ilaahay gacantiisa inay wax waliba ku jiraan waxaad u baahataba isagumaad weydiinaysa haddaad rumaysato ilaahay gacantiisa inay wax waliba ku jiraan waxaad u baahataba isagumaad weydiinaysa